lacagtan la yiraahdo crypto waa lacago cusub oo hadda adduunyada ku soo kordhay waa lacagahaas badan gudoomiye ma aha dollarka caadiga ah warqada ma aha dahabkii la yaqeenina ma aha waxa la yiraahdaa digital currency salira al-umlaat raqmiina carabiga lagu yiraahdo lacagahaas mudan gudoomiye caalamka hadda ku soo kordheen waxa looga maarmay taakooyinkii ay bangiyada ku hay jireen dadka lacagaha waaweyn haysta oo ah in markaad lacag bangi dhigatid aad isla markii ka heli karin saadarteeda waa lacagta hadda la rajaynayo in loo guuro adduunyada hadda ay u guurto mudan gudoomiye saddex qaabood ayaa lacag looga sameeyaa suuqaas midda koowaad waa investment qofka inuu sameesto maalgelin oo lacagtiisa maal gasho dad badan hadda waxa jira lacagaha ku haysta bangiyada halka dollar bangiga dhigato 10 sano kadib halka dollar ku yaal laakiin caalamku hadda wuxuu sameeyay investment inaad lacagtaada maal gasho lacaga waxa jira oo kriptada ah waxa ugu weyn oo hadda aabo ah ama hooyo ah lacagta la yiraahdo bitcoin 2012 waxay joogtay halka xabo ku dhawaad $1 ay joogtay halka bitcoin macna qofkii ka maal gasho lahaa ama soo iibsan lahaa meesha ugu yar aan ka soo qaadno $1 oo 1 xabo ah sanadkan halkii bitcoin wuxuu gaaray $70,000 uu gaaray halka bitcoin bitcoin wuxuu gaaray $70,000 macnaheedu maxay ka dhigan tahay marka dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay lacagtaadii waa gelisay computerka waa isku laabtay waa ka jeesatay maanta 2024 ah waxa haysataa $70 milyan kunkii xabo oo halkii xabo 70,000 waa $70 milyan ma shaqeynin yani ma dhidin 4 saac computer ma dul fadhinin baawur ma sii saarneen ma soo saarneen suul meel ma saareen kaliya waa investment ina suuqa maal gashato mudan gudoomiye lacagahaas investmentiga ah meesha ugu yar hadda ka sheegnay waa $1 ninka 10,000 gasho lahaa 700 milyan oo heli lahaa suuqaas marka maalin kasto saacad kasto sanad kasto wuxuu soo saaraa dad milyaneero soo saaraa oo aan u dadaalin inay milyaneero noqdaan lacagta meeshaas laga sameeyo mudan gudoomiye laga ma sameyn karo apartmentiyo aad dhisatay wixii ka soo galo ma ka sameey kartid lacagta meeshaas laga sameeyo kama sameey kartid mushaar aad qaadatay wixii aad meel ka dhigtay kama sameey kartid dad badan oo ka faa'iideysta jiro ayagoo da'dooda yara waalidkooda lacag ka qaatay suuqaas maal gashtay markay 20 sano gaareen ay milyaneero yihiin mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh wajigaas koowaad waa wajiga investmentiga waa wajiga labaad oo suuqan lagu faa'iideysto waxay tahay inuu qofka ka trade forex-ka camal يعني سوق مركو كعنا إنه قطع مركو سورة قيسوبان إسك إيبي وحلاقي أبا دتك قاركودا 20 هاد بوحي هيستان إنه سوق الجليان ديلي تريدر الله صبح إنه ساقعه قال كيس جيفكو كساقعه قال كله كود جنو كمبيوتر كيس بس يتجا سود وصو حرنا سي إنه نش غيره وعمله تغنى مصر على كمبيوتر كده حش غيره ومعنا طبعا كيس كونوا لجلا سوق أقان يحرفه كود سنت سوقه وحكود سنت حسابات اللي الجوريثم كود سنت ماها جامبلين ماها سيدا وانا كسبتكو كلا لبكو واحدة وين أيام مركز صادالنا إنه بدنش ما قاعد على مركز واحدة ير إنه تنتك واحدة وين يكبر جامبلين وايتاس معناه وبختيار نصيب تنلك بختيار نصيب ما وأقان كود سنت هاي حرفه الاستعمال واي xirfadaas soo baranay YouTube-da ku jiraan ayadoo Ingiriis ayadoo Carabi ah luqad kasta waa ka helay marka soo baratid suuxi waa soo fariisanay sessionka inuu furma fiirsanay New York London labadaas bangiga laga tareed garaya marka soo gashid suuqa marka aragtid aqoontaada ay ku tusto in la bay gareenay waa bay gareenay adigna waa soo iibsanay macna waa soo iibsanay marka soo iibsato suuqi uu dhaqaaqa bangiyada caalamka iibsanayo tareenka socda dhinac ka raacay adoo $1 wadati iyo wax ka yar faa'iidadaada markuu ku gaaro marka xaddi waa kala bixay waa iska iibinay farqiga marka faa'iidada waxay tahay intaad gelisay iyo inta uu kacay markii la kala jaro faa'iidada intaas waa diiniyan xaraan ma aha tusaale ahaan baawura ka soo iibsatay Dubai $5,000 ku soo iibsatay xamara keentay 5,000 ma joogay 10,000 laga siinaa markii la kala jaro marka فائدة ماشاس كسب بحث سوى فائدة أذيك على ذا وتريد واي وأنا يعني البيع والشراء وجهة سد حد مدن قدومي ووجهة حد كيس كان له تاجية وصرفات أفك إنه كسر في العقد وحاجرته ضد بدن وملايين هيشتو الدنيا ذي جو لكن أنا لسفر كريم أنا سوق هذه كريم وحمر لي ما كريم العقد لما أقوله صادرت هذا العقد وقبنا تصالحان دبي جوكتا هالملينا هيستا العقد وقبنا درهم أبدل درهم مركب أبدشيد وحاجين البنجيدة أو USDT دان استعماله بين السياج جرو شركة أقوى أكون كذا كشوانه waxa u baahan tahay kaliya in akoon furato farfaydna uu ku yahay oo KYC-ga la yaqaan intaas bas u baahan tahay agtaada waa la soo tagay marka inta la iimaanay xamar diyaarada soo raacday maliyana telefoon ku wadata cid ku baaraysa male cid ku daba socota male cid ku rabtana male dawlad ku daba galeysana ma jiro haddaan transaction maanta konton kuna sameeyo dawladii daba kacayso dhees konton inta u wadi inta kaaga timid su'aalaas ku weydiinaysa ma jirto marka dad waxa jira marka Soomaaliya aad loo fahmay lacagtaas dad badan oo waxa jira ka ganacsado qofku wuxuu rabaa marka USDT oo ah halka USDT waa $1 u dhigma stable coin allaha ma dhaqaaqdo macnaha halka USDT oo $1 ah waxa laga yaabaa qofka inuu rabo inuu suuqa lacag la galo oo ku yiraahdo waxaan rabaa 100,000 USDT suuqa rabaa inaan galo ma helaya marka xamar uu jooga adaa ka saacidaysid 100,000 waalidkiisa ugu diray asiga lacagtu hay kaash ahaan bangigaaga caadiga salaam bank ama wuxuu kugu diraa Premier Bank lacagtaada caadiga USDT maxaa haysataa ayadoo caadi ah akoonkaaga kugu jirta saasay tahayna waxa saaranay lacag sarifaada oo $100
$3 $4 faa'iidana waa haysataa lacagtaada originalkana waa haysataa marka waxaan rabaa inay maxkamaddu saa u fahantay audience-ga meesha fadhiyo cryptocurrency waxa la yiraahdaa saas waa